wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo wehelinayo maamulka gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera ayaa maanta waxay magaalada Berbera ay ka dhagax dhigeen shaybaadhka xoolaha. Shaybaadhkan ayaa waxa uu noqon doonaa mid lagu shaybaadho xoolaha kala duwan ee ka dhoofaya dekedda weyn ee magaalada Berbera, waxaana munaasabadda dhagaxdhigga halkaasi laga jeediyay hadallo kala duwan oo lagaga hadlayay muhiimadda uu leeyahay shaybaadhkani. maanta waxaa halkan laynoo dhagax dhigayaa shaybaadhkii qaranka ee ugu weynaa dalka. shaybaadhkaas waxay naga caawinayaa World Bank waxa weeyaan shaybaadh qiimihiisa yeelanayo noqonaya waliba magaaladii laga dhisayo xooluhu ka dhoofayeen. aad iyo aad bay bisiir farxad noogu tahay dhagax dhigaad noo dhagax dhigaysaa. laabkan oo kaliya maaha, laabkan iyo help hostes kale oo 4 ah ayaa mashruucan ku jira oo saddex xuduudaha ah kii aynu soo dhagax dhigay Abdaal iyo kan oo kani kii ugu weynaa uu yahay. marka waxa weeyaan waxay noqonayaan series of projects wada socda oo dhammaan lagu tayeynayo xoolaha Soomaaliland. tanna waxay farxad weyn noo tahay inuu qarankeenu helo laab aan ka mid ahayn maxjarada aan ka mid ahayn mid maxjarada kantaroola oo xoolaha naga baxaya ogaada oo xaaladiisa ka warhaya oo wax kasta oo dhibaato ama magac Soomaaliland ku keenay dalkeena ka horba laga sii ogaado. marka wasiir aad iyo aad bay farxad weyn ugu tahay xaruntan mudada xanaanada naga shaqaysiyo maanta dhaqaalaha inta la geliyo laabka inta la qaranku leeyahay laga dhiso wax weyn bay qaranka iyo gobolka iyo degmada ay u tahay. faraxsanahay gobolka Saaxil ahaan iyo qaranka anagoo matalaynaba daafurka la dhagax dhigayo xarunta baarista xoolaha ayaan aad ugu faraxsanahay in gobolka iyagu noqdo gobolkii Saaxil in laga dhigo, taasoo sababtuna ay tahay maadaama halka ku taalo dekedii Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu weyneed ee Berbera xoolihii laga dhoofinayo. macaali wasiir waan idinku mahadnaqaynaa, idinkuna shaqo weyn oo ballaaran baa dalka u qabateen. sidoo maayarkuba sheegay ninkan waa lambar 1 buu noo yahay anaga isuduwaasha kala duwan ee ka howlgala gobolka Saaxil. Dr. Maxamed Saleebaan waa nin ku suntan howlkarnimo aan mujaamalo ku jirin, waayo wuxuu qabtay xilliga abaaraha ayaan ku qiimeynay. maanta maalin weyn oo aad maartay qiimo weyn ugu leeyahay. halkan maanta waxaynu dhagax dhigaynaa oo dhagax dhig kaliya maaha la bilaabi doonaa sanadkan haddii la yiraahdo laab referral laab weyn waxa la sheegay noqon doona laabkii xoolaha dhoofka xoolaha laga jeegreynay maxsharada oo dhan controlay. laabka markii sanad iyo badh ka hor la sheegay mashruucu xukuumadii naga horeysay design garaysay, laakiin halkan looma design garin marka hore. wuxuu laabkan in laga dhiso Hargeysa qodobal baankana u yeedhay kuwii dhoofka xoolaha Berbera la geynay halkan laga dhisay. dadnaaniga halkan in laga dhiso oo kula taliyo kuwii waayo halkan maadaama tahay ruudka dhoofka xoolaha ugu weyn iyaguna runtii si fiican bay ugu qanceen. halkan waxaan u doornay markii hore qorshe waxa in meeshii hore wasaaradda xanaanada xooluhu ku taalay laga dhiso wada socotiino degsiimooyin baa gaadhay dhulkii waa soo dhaafay. laabkana waa very sensitive, la doonaya meel bilaasan qara meel maxay tahay aanay dadku soo gaadhin meel ka yara go'an maxay tahay degsiimooyinkii bay u baahan tahay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdishakuur Cidin oo dhulkan intan leeg dhulba laguma soo gaadhin waddanka haddii maartay qofka mas'uulka bay ku xidhan tahay mar walba. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha oo halkan intan leegood runtii aad u ballaadhana markii horeba u qabtay meesha. marka halkan maalintan nimi suduwahana waan u sheegay waxaan ku meeshan waa meesha laabkan ka dhigi karayna ugu wanaagsan halka waan ka bedelina. marka maanta Ilaahay wuxuu qadaray in laabkii maanta halkan ka dhagax dhigno dhulka fiican ayaa laga sameyn doonaa. shirkadda Rio Architect waa garanaysaa ma filayaa shirkadda ugu waaweyn weeye design-ka iyo architect sameeyay. waxaynu u baahannahay wax mustaqbal dheer suga haddii la yiraahdo in anfaca oo standard oo caalamka maadaama dhoofka xoolaha layna tartamayo laab caalami insha Allah bidmillah kariim oo noqon doona laab standard. Cabdirasaaq Qaasin, Telefishinka Saab, Berbera.